الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كنتي وناكسن مركله كسو دوادا مقال عصب يا channel كنيان وداق فالله هدي على سبسكرايب سارن ولي سبسكرايب يعني صارتنا كيرنا إن شاء الله مركب مقال خداوته si ay dhiirigelin noogu noqoto muuqaalada noocan oo kale ah usoo badino muuqaaladii hore aan soo geliyay dadka daawaday boqolkiiba 70 in gaaray subscribe meesha saarin boqolkiiba 30 kaliya saartay insha Allah taala waxaan rajeynaynaa in mataqaanaa aad saari doontaan insha Allah subscribe wixii faalaana aad qaybta commentiga noogu wada doontaan muuqaalkeena maanta wuxuu quseeyaa sidee qofku uu ku heli karaa ticket raqiis ah gaar ahaan diyaaradaha markuu raacayo waxa loo yahay qofka waxa ugu weyn oo ku soo dhacay inay disney tahay ticketka inta badan waa qaali marka si ticket raqiis loo helo ayaa maanta kaga hadlaynaa mataqaanaa muuqaalkeenan anagoo isticmaalina qaabab kala gedisan oo loo raadiyo ticketka raqiiska muhiimadu waxa weeye sidee ku safartaa isla markaana ticket raqiis aad ku heshaa kusoo dhawaada barnaamijka waxaan isla eegnaa insha Allah taala 9 qodob oo qof walba oo isticmaala telefoonka smartiga ama computer haysta ama laptop internet waliba haysta uu samayn karo si uu ka helo ticket macquul ah ana ognahay ticket qiimihiisu inuu hadba isbedbedelo oo san qiimo cayiman uusan joogin 9 qodobka ugu horeeya waxa weeye in ahaato be flexibility wana leedahay oo taan macnaheedu yahay in aad dhowr doorasho leedahay oo aad hal wax kaliya ku dhiganaan qodobkan waxa soo isgalaya ilaa 3 waxyaalood maxaa kamid ah diyaaradda raacaysa kamid ah maxaa kamid ah meesha u socoto haday dhowr ay boor leedahay baa kamid ah maxaa kamid ah xilliga aad baxayso waxa kale oo kamid ah diyaaradda raacayso ma diyaaradda direct flight hamiya oo toos u aadaysa meesha u socotay masama waxay maraysaa meelo kale oo ay transit ku noqonaysaa waxa loo yaqaan connecting flights qodobka ugu horeeya marka hadaan qaybtiisa koowaad aan galno hadii aad meesha u socoto kale ay leedahay dhowr airport dhowr garoon diyaaradeed inaadan dhihin mid kamid ah ayaa raba oo aadan doorashadii aad adigu aad lahayd aad soo koobin ee aad ballaariso waxa marka u baahan tahay sanaana kale waxa laga yaabaa inaad u socotaa Istanbul oo kale ama waxa u socotaa London marka inaad dhahdo Istanbul airportkeeda hadda la dhisay u baahanahay diyaaradeedu inay tagto ama kii hore ee hadda la soo bedelay oo wali asna la isticmaalo ama mid kale oo yariiso ku yaala meesha la dhaho Sabiha airport intaba waa inaad hal doorasho qaadan si aad ticket raqiis u hesho waxa laga yaabaa diyaaradaha tagaya Istanbul airport inay raqiisan yihiin oo ku hore ay qaali yihiin ama cagsigeeda intaba waa heli kartaa tan kale oo qaayada ku jirto waxa weeye inaadan dooran oo aadan choice-kaaga aad ku soo gaadin hal diyaarad ama laba diyaaradaha la isticmaalo kamid ah hadii aad jeceshahay inaad mataqaanaa aad ku baxdo ama aad ku safarto diyaaradda KLM ama Ethiopian Airways de markasta ticketku sida ku ogeed ma uu isbedelaya marka waa inaad dooran kartaa aad raaci kartaa diyaaradaha kale ee ka qiimo jaban kara maalinkaas aad baxayso sidoo kale waxa ku jira direct flight-ku inta badan uu ka qaalisan yahay qofku inuu meel kala maro oo transit u noqdo marka waa hadii aad wax degdeg ah oo mataqaanaa markaas aad ku bixinaysa jirin waxa ku fiican inaad inta badan aad raacdo diyaaradaha mataqaanaa transitka ama waxa loo yaqaan connecting flights salaam waxa u socota Nairobi oo kale inta toos uga bixi lahayd Stockholm ama mataqaanaa Frankfurt aad u aadi lahayd mataqaanaa Nairobi waxa dhaantay inaad sii marto Masar ama Ethiopia ama Imaaraadka ama Turkiga labo ama hal transit inaad sii marto inta badan tigidhada noocaas oo kale waa raqiis waayo kaliya muhiimadu waxa weeye aad xoogaa waqti yar aad dib u dhacayso sidoo kale qodobkan waxa soo hosgalaya xilliga uu qofku baxayo hadii aysan jirin wax degdeg oo markaas aad ku baxaysa maalinkaas qofku wuu dooran karaa maalinka uu baxayo tusaale ahaan waxa laga yaabaa hal maalin laba maalmood isku xigta inuu qiimaha ticketku aad u kala duwan yahay beriyo kala baxaysa
waxaa laga yaabaa inta beriid inta joogto saa dambe inaad baxdo inay diyaaraddii ay ka raqiisan tahay oo qiimo aada u weyn ay ku kala duwan yihiin. qodobka labaad oo aan kaga hadlayno waxa weeye website-yadee ama sideebaa meelahebaa laga heli karaa tigidhada raqiiska. boqolaal kun oo waxaa jirta website ama travel agency oo tigidhada laga jarto. marka mid saddexda ugu waaweyn oo kuusoo koobaya dhammaanba wax website jira ee maalinkaas tigidhka adigu aad doonaysa iibinaya ayaa mataqaanaa isla wadaagaynaa anigoo shaashada kusoo qori doona insha allahu tacaala. websiteka ugu horeeya waxaa la dhahaa oo si general loo isticmaalo Google Flightska. Google Flightsku wuxuu ku keenayaa maalimaha dhowr maalmood oo kala duwan oo maalinka baxayso ama horay ama gadaal intaba ayuu isu soo koobiyaa. markaas adaa dooranaya maalinka mataqaanaa ay is leedahay tigidhku waa macquul maalinkaan aan dooranaya. websiteka labaad waxa weeye kayak.com oo asna website aada u weyn. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa Skyscanner. dhammaanba websiteyadaasi waxay kuusii daadejinayaan in markaad gasho qaarkood ayuu kusoo koobiyaa. markaas adaa ka dooranaya midka is leedahay waa ugu raqiisan yahay ama waa ugu macquulsan yahay. qodobka saddexaad waxa weeye inaad nadiifiso cookieskaga. cookieska waxa weeye waa barnaamij ay isticmaalaan dhammaanba websiteyada aad booqanayso, ha ahaato kuwa tigidh laga jarto iyo kuwo kaleba. barnaamijkaas ay isticmaalayaan waxay save gareynaysaa xilliga aad mataqaanaa waxaad raadinayso waxay yihiin aad mataqaanaa aad gadato aad rabto. sidoo kale waxay save garanayaan meesha aad joogto, adresskaaga, IP adresskaaga iyo xogo kaloo tiro badan. markay ogaadaan in aad tigidhkan ama alaabtan aad u baahan tahay oo alaabtuna qiimo price oo markaas cayiman aysan joogin oo laga yaabo inay qaali noqoto ama inay raqiis noqoto, markay ku arkaan inaad danaynayso tigidhkan oo kale haddaad uu travel agency yahay waxaa laga yaabaa inuu qiimihii tigidhka uu mataqaanaa badiyo, waayo way kula socdaan oo si waxay automatic ay ku arkaan. marka si aad uga gaashato inay xogtaada ogaadaan waa inaad private ka dhigtaa browserka ay isticmaalayso. browser waxa weeye websiteka ay isticmaalayso meesha ay ka gelayso inay ahaataa meel private ah. sida looga gelayo iyo sida looga dhigayo waa isla eegaynaa adigoo isticmaalaya barnaamij loo yaqaano incognito. haddii aad telefoon haysato iyo haddii aad mataqaanaa haddii ilaahay ku yiraahdo aad computer isticmaalayso intaba isku si ayaa loo isticmaalaa barnaamijkan. marka wuxuu joojinayaa in xogtaadii la helo, tigidhkaagiina si nadiif ah adoo cidna ku ogeyn ayaad mataqaanaa aad u jaranaysaa ama xogtaadii u raadsanaysaa. daawadayaal, markii aad browserkaaga haddii aad isticmaalayso computer ama laptop ama telefoonkaaga waxaa sameynaysaa keliya qeybtan settingka saddexdan dhibcood ee meesha ku yaala ayaad ku dhufanaysaa, klik siinaysaa. kadib waxaad dooranaysaa meeshay ku qoran tahay new in private window. telefoonka halkaas oo kale meeshay ku qoran tahay new in private window waxaa ku qoran use incognito. waa isku macno marka labadaas waa ku dhufanaysaa iyadana haddii aad telefoon isticmaalayso. marka hadda aan ku dhufto wuxuu i geenayaa page cusub oo kii hore ka duwan. waa halkan marka meeshii aad ka raadsanayso tigidhkaaga websiteyadii hore aan kusoo sheegay sida tusaale ahaan Google Flightka oo kale iyo kuwa adu aad garanaysaba halkan aad ku qoraysaa, halkan aad gelinaysaa si markaas xogtaadii aysan u helin meelaha aad ka jaranayso tigidhkaaga. sababta loo isticmaalayana waa intaas oo keliya. qodobka afraad waxa weeye in aad tigidhkaaga jarato 2 bilood ka hor intaadan bixin. waa laga yaabaa marmarka qaarkood in maalinka ugu dambeeya ama 2 maalmood ugu dambeysa xilliga uu flightku uu baxayo in ay wixii soo haray boosaskii diyaaradihii ka banaanaa kuraastii ay qiimo jebin ku sameeyaan. laakiin inta badan lasuma halayn karo. tigidhkaaga waxaa fiican inaad jarato 2 bil ama 3 bil ka hor intaadan bixin haddii uusan ahayn wax degdeg. sidoo kale waxaa fiican qofku inuu baxo maalimaha isniinta, talaadada iyo arbacada, 3 maalmood oo asbuuca ku dhex jirta
dhexbartamaha ah baa ugu inta badan raqiisa. laakiin maalmaha weekendiga sida sabtida oo kale ama axadda xataa jimcaha markii lagu daro tigidhada waayo dad badan baa baxaya inta badan waa qaali. taa micnaheeda maaha marka in aad ayaga laftirkooda aad fiirin, waa laga yaabaa in tigidh raqiisa xataa maalmaha laftirkooda aad hesho. waa inaad markaas adigu aad baartaa oo aad kala doorataa. qodobka shanaad, haddii aad tigidh jaranayso waa inaad jarataa xilliga habeenkii ah oo aad online ku jaranayso. habeenkii marka waddanka aad joogto markay dadku kala seexdaan oo late night ay tahay oo kale inaad jarataa kuu fiican. oo waayo inta badan dadkii ka shaqeynaya waxyaalahan oo marna qiimaha badinaya marna yareynayay shaqada kuma jiraan. sidoo kale dad badan oo markaas soo jeeda oo ayaga laftirkooda wax iibsanaya ma jiro. markuu dadka in badan ay tigidhka iibsadaan wuu qaaliyoobaa. laakiin haddii dad yar ay markaas iibsanayaan oo khadka ay ku dhex jiraan badanaa waa raqiis. haddii aad jaranaysa marka tigidh waa inaad fiirisaa xilliga saqda dhexe habeenkii marka intay dadka hurdaan. qodobka lixaad, haddii aad isticmaalayso diyaaradaha loo yaqaano Star Alliance-ga. Star Alliance waa ilaa 25 ilaa 26 diyaaradood oo diyaaradaha waaweyn oo caalamka ah kuwa ugu awoodda waaweyn la isticmaalo waayo. inta badanna Soomaalidu diyaaradaha isticmaasho baa ku jira. diyaaradda waxaa ku jirta Ethiopian Airways, Turkish Airways, KLM, Lufthansa. marka diyaaradahaas Star Alliance memberska qofku wuxuu ka noqon karaa xubin uu iska diiwaan gelin karaa. markaas diyaaradahaas aad ku safarto markastoo aad safarto customer number ay ku siiyeen ayaad gelinaysaa markaad tigidhka aad jaranayso. bonus badan hesho. bonuska maxaa loo isticmaali karaa? bonuskaasi safarka ku xigo aad baxayso ayaa qiimo dhimis lagu sameynaya oo lacag ahaan isku bedelaya. ayagaa qiimeynaya 1000 bonus, 500 bonus. waxay ku xiran tahay habba inta jeer aad safarto. flight kastoo aad baxdo oo aad diyaaradahaas aad raacdo oo inta badan Soomaalidu isticmaasho bonus baa kordhaya. marka bonuskaasi ama tigidhka ku xig ayaad isticmaalaysaa, ama sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa inaad hoteelada qaar ay xiriir la leeyihiin oo kale jirta. haddii aad hotel degayso oo kale waxaa laga yaabaa 2000 oo bonus in 2 habeen ama 3 habeen oo hotel aad ku seexato. sidoo kalena xataa waxaa dhici karta in mataqaanaa mararka qaarkood dukaano aad oo online ah wax looga iibsado oo bonuskaas oo gol baa jira oo aad wax ku iibsan karto. marka diyaarad walba oo diyaaradahaas ka mid ah waxay leeyihiin meel la iska diiwaan geliyo website-kooda. haddii aad isticmaalayso diyaaradda Lufthansa oo kale iyo KLM waxay isticmaalaan barnaamij la dhaho Miles. marka way iska diiwaan gelinaysaa xogtaada iyo baasaboorka numberkaaga iyo magacaaga iyo waxaas gelinaysaa. marka markasta oo aad tigidh jaranayso lambarkaas ayaa isticmaalaysa. waxaa dhici karta xataa inay kaar yar kuu soo diraan oo magacaagii iyo lambarkaagii waxay ku qoran yihiin. laakiin inta badan uma baahnid haddii aad kaliya aad taqaano customer numberkaaga ama member numberkaaga bis. diyaaradaha haddaad isticmaasho SAS oo kale ama Scandinavian Airlines oo kale ayagana way isticmaalaan barnaamijkaas oo waxay u yaqaanaan meesha kuwa kale ay miles ay u yaqaanaan ayaga waxay u yaqaanaan euro bonus bay u yaqaanaan. qodobka 7 oo asna meesha ku jira waxa weeye inaad isticmaasho gaadiidka dadweynaha sida basaska iyo tareemada. haddii meesha u socoto meel ka sokaysa ay jirto oo tigidhku uu raqiis yahay, tusaalahaan waxaa laga yaabaa inaad ka baxayso Stockholm ama Oslo aad ka baxayso oo u socoto magaalada Vienna. marka intaad Vienna toos u aadi lahayd waa inaad fiirisaa magaalooyinka u dhow oo ka sokeeya Vienna xataa haddii ay wadamo kale ay ku yaalaan. inta badan Yurub waa wadamo isku dhow dadka Yurub jooga. marka waxaa ku degan kartaa oo kale Frankfurt haddaad bas ka raacdo oo aad Vienna tagto qiimihiisa fiirinaysa. inta badan basaska iyo tareemada waa raqiis. baska ugu raqiisan oo aad isticmaali kartana waxa weeye waa Felix baska mid ay dhahaan oo raqiis ah. hadda ka hor waa soo raacay intay diyaaradahaas oo kale tigidhku qaali ugu noqday. Oslo ilaa Hamburg waxaa laga qaaday lacag gaaraysa 70 euro. haddii aan diyaarad soo raaci lahaa 300 euro ama ka badan bay noqon lahayd oo markaas tigidhku qaali buu ahaa xilligii COVID-19 sanadkii hadda lasoo dhaafay. adaa qiimeynaya waxaa dhehaysaa haddii aan toos u tago meeshayda iyo haddii meelo ka dhow
oo isla waddanka gudihiisa ah ama wadamada ku dhegdhegan oo kale dariska ay yihiin, meel tareenku u soconayo 1 saac, nus saac ama wixii ka yar ayaa kaga deganaysaa. waxaa laga yaabaa lacag badan inay ku save garayso adigoo eegaya haddii aad toos u baxdo oo aad diyaaradda raacdo iyo haddii aad ku dhex darsato public transportation. marka qiimahooda fiirinaysaa, marka kii ku qiimo jaban ayaa markaas dooranaysaa. qodobka 8aad oo asna muhiimadiisu loola waxa weeye haddii aad boorsooyin badan aad wadato, inta badan boorsooyinka flightka lacagta kuma jirto, waa qaali. haddii laakiin aad boorsooyin badan wadato, tusaale ahaan dad badan oo kale aad tihiin, ilmo iyo waxa aad wadataan, ama muddo fara badan aad maqnaanayso, aad u baahan tahay in alaab badan qaadato, waxaa ku wanaagsan in aad inta boorsooyinkaaga inta kiilo ay yihiin aad sii gadato oo aad online-ka internetka ka gadato inta aadan tegin aeroboortka. haddii aad aeroboortka tagto oo aadan iibsan, qiimaha 100% aad bixinaysaa, aad bay qaali u tahay. laakiin markaad internetka ka jarato 40%, 50% sometimes qiimo jabin baa lagu sameeyaa oo mataqaanaa lacag badan ayaa xagga ka saf garanaysa. laakiin haddii aad toos u tagto aeroboortka, isxaan ma jiro, lacagta oo dhammaystiran baa bixinaysaa 100%, aad bayna qaali u tahay. qodobka 9aad oo ah qodobka ugu dambeeya, haddii aad tahay qof mar walba safra, sanadkii 2 mar 3 mar iyo 4 mar safra, ha ahaado mid local ah ama mid safar banaanka oo dibadda ah ku raba ha ahaado, waa in aad markaad website ka jaranayso tigid, qaybta ugu dambeysa markaa shaqadii soo dhamayso aad doorataa inay kusoo diraan newsletterska. adaad iska u dooran karaa, xorba u tahay ama waad diidi kartaa. newsletterka ama waxa loo yaqaano notificationka waa inaad ogolaataa. waxaa laga yaabaa inay mar walbaba markay tigidha ay helaan, tigidha raqiis ay helaan, si ay macaamiishooda usoo jiitaan, inay kusoo diraan email, ama haddii telefoonkaaga aad ku diiwaan geliso telefoonkaaga ay SMS kugu soo diraan sheegaya tigidhka noocaasa oo maalinkaasa waa raqiis, si aad uga faa'iidaysato. daawadayaal akhyaarta sharafta leh, muuqaalkeeni maanta aan kaga hadlaynay sidee lagu heli karaa tigidh diyaaradeed oo raqiis ah ama qiimo macquul ah, intaasuu ku egyahay. waa muuqaalkii 8aad oo aan channelkan soo geliyey. mar kale aan ku xasuusinayaa fadlan channelkan subscribe noo saar. intaan muuqaal noocaan kale aan ku kulmi doono, waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.